Masai Mara waxay ka mid tahay xayndaabyada dabiiciga ah ee aadka ugu badan yihiin xayawaanada duurjoogta ah. Waana goobta ugu caansan ee ku taala gudaha Kenya. Waa xayndaab dabiici ah waxaana magac loogu bixiyay iyada oo loo tixgelinayo qabiilada Maasai oo halkaas ku nool iyo webiga weyn ee Mara oo halkaas ku yaala. Marinka webiga weyn ee Mara waxaa sanadkii gooya oo dhinac kale uga tallaaba xayawaano duurjoogta ah ee ugu badan ee hijrada dunida. Malaayiin lo'giisi ah, dameer farow, deero iyo xayawaano kale. Xayawaankan ayaa ka soo haajira Serengeti oo ku taala gudaha Tanzania soona gaara Masai Mara oo gudaha Kenya ah. Iyada oo baadigoob ugu jiraan daaq cagaaran badan oo halkaas laga helo. Iyadoo ay arrintaasi jirto ayaa haddana xayawaanku ay la kulmaan khatar fara badan. Waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqa webiga oo awood badan sababan in xayawaan badani ay webiga ku maashoodaan amaba xayawaan kale ku ugaarsado. Inta ay u suurto gasho inay webiga gooyaan oo jidda kale uga tallaabaan ayaa haddana waxay waajahaan khatara xayawaan kale oo u diyaarsan ugaarsigooda. Oo ay ka mid yihiin harimacad, libaax iyo xayawaano kale. Ku darso xayawaan badan ayaa haraad iyo daal dartii u dhintay inta ay wadada sii socdaan. Dhab ahaan waa mid ka mid ah muuqaalada dabiiciga ah ee dunida ugu soo jiidashada badan. Cabdulcasiis Meegaag, barnaamijka Subax Wanaagsan.